ururka SRF ee fadhigiisu yahay wadanka Denmark oo ka shalay ururka maxalliga ah ee Skoodo ayaa waxa uu gaarsiiyay qalab iskuul deegaanada Cajid iyo Goljanno ee ka tirsan gobolka Sool. qalab kale waxa uu wax weyn ka tari doonaa tayada waxbarashada labada iskuul ee ku kala yaana Cajid iyo Goljanno waxayna noqonayaan iskuul si buuxda u qalabaysan. ururka SRF ayaa kaali aad u mugna ka qaatay horumarinta deegaanada Sool Sanaag sida horumarinta adeegga caafimaadka waxbarashada shaqo abuurka dhalinyarada iyadoona sanadihii u dambeeyay waxqabad muuqda ka qabtay deegaanada Awboogays Woodward kala beer saxdheer la saanad qoriray karin iyo deegaano kale. ugu horeyntii waxaa halkaa ka hadlay mas'uuliye ka socda ururada SRNF iyo ururka Skoodo. waan maanta aan ku hadlayaa hay'adda Skoodo iyo hay'adda sidoo kale iska kaashanay qalabka maanta aan wareejinayno oo ku wareejinayno iskuulada Cajid iyo Goljanno hay'adda SNRF iyo anigoo ku hadlaya magaca hay'adda Skoodo waxaan maanta ku wareejinaynaa qalab dhameystiran oo iskuulada Cajid iyo Goljanno qalabkaas ka kooban kii galaasyada ee iskuulada ardaydu wax ku baranaysay kii xafiisyada dhammaan qalabkii iskuulka oo dhameystiran ayaan maanta ku wareejinaynaa magaalooyinka Cajid iyo Goljanno iskuuladooda si ay ardaydu uga faa'iideysato kana qayb qaadato tayeynta waxbarashada iyo qalabaynta iskuulka. Allah ta'ala u dirano maamulka iskuulada Cajid iyo Goljanno iyo waalidiin iyo ardayba qalabkaas loo keenay oo asaaka ay arkeen waqti badan iyo dadaal badan iyo juhdi badan baa ku baxay. marka fariintaan u dirana waxa weeye insha Allah ta'ala qalabkaas inay ka faa'iideystaan oo waxa weeye haday noqoto ilaalintiisa iyo xifdintiisa iyo waxa weeye hagaajintiisa iyo dayactirkiisa si jiilka dambe uga dhaxlo oo sanawaad iyo waqti dheer ay maartay looga faa'iideysto insha Allah ta'ala qalabka inay ilaaliyaan mas'uuliyadiisa ay ilaaliyaan oo ay si fiican uga faa'iideystaan ayaanu u dardaarmanaa. dhinaca kale waxaa iyaguna dhiricooda ka hadlay maamulayaasha iskuulada Goljanno iyo Cajid qaybtan ka socotay hay'adda SRNF iyo Skoodo ka socotay inoo waday qalabka kuraasida iyo miisaska iyo qalabka iskuulka dhameyska tirano waday waan ka guddoonay waxaan leenahay qalabkaas waxaan u isticmaali doonaa sidii aad ugu tala gasheen oo iskooladii baahidu ka jirtay ahayd inay qalabka u baahan yihiin si ay tahay inaan u isticmaalayno oo iskoolada uga faa'iideynayna caruurta iyo dadka wax baranaya aan uga faa'iideynayno 100% idinkana aanu idinka mahad celinayno sida wanaagsan aad saga kaashateen iyo si wanaagsan aad noogu soo wareejiseen iyo si wanaagsan aad noo garab istaagteen oo qalabka aad noo soo gaarsiiseen anagoo idinka mahad celinayna labada hay'adood Skoodo iyo SRNF labadiinaba aad baan idinkaga mahad celinaynaa. maanta aanu joogno Cajid bishii 6aad waxaanu helay oo ka helay labada hay'adood ee Skoodo iyo hay'adda kale waxa weeye marka ay iskaashanayaan qalab aad u qiimo badan oo waxa weeye kuraasidii iskuulka iyo galaasyada ardayda iyo kii xafiiska loogu talagalay annagoo waxa weeye marka labada tuulo ee Cajid iyo Goljanno waa ka guddoonay hawlwadeennada wada iyo dhammaan hay'adda cid kasta waxa weeye ka qayb qaadatay inay soo gaarsiiyaan aad baan uga mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan leenahay cid kasta oo ka qayb qaadatay oo iska kaashatay inay awlaadtaas soo gaadho Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan uga barin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu miisaanka xasanaadka u siyaadiyo sidoo kalena waxaanu ballan qaadaynaa inaanu fulino ballantaas iyo amaanadaas oo aanu fulino sidii loogu talagalay iyo habkii loo idmay inaanu u fulino baahiduna waa ay jirtay oo baahi aad u muhiim ah ayaa jirtay oo looga baahnaa goobahan looga baahnaa labada tuulo looga baahnaa waana ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynaa qadar tarabi wararka Kalsan TV la sanad